faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iska horimaad xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. dagaalkan u dhaxeeyay ciidan ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo ciidanka militariga kana mid ah ciidan ay tababareen Imaaraadka Carabta ayaa xalay ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. iska horimaadka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidanka nabad sugidda Soomaaliya gacanta ay ku dhigeen 3 askari oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan ciidanka ay tababareen Imaaraadka Carabta kuwaas oo ku sugnaa nawaaxiga isgoyska Tarbuunka ee Muqdisho. ila wareedyo madax banaan oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa sheegaya in saraakiil hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka ay weydiisteen ciidanka nabad sugidda in la sii daayo 3 askari ee nabad sugiddu ay xabsiga u taxaabeen taasi oo saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda ay ka biidideen taasi waxayna arintaasi ay sababtay dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda Soomaaliya dhexdooda. dagaalka ayaa waxa uu ka bilowday xerada Imaaraadka Carabta oo ku tababaro ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku taala agagaarka warshada caanaha iyadoona uu ku sii fiday xaafado kale oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ayaa xalay iska caabin xoogan kala kulmay ciidanka militariga ee degan warshada caanaha iyo sidoo kale isbitaalka xoogga waxaana dagaalka intii uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalka ka qayb qaatay gaadiid dagaal oo labada dhinac ay wateen. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa Shabeelle u sheegay in dagaalka uu xoogaystay kadib markii gurmad xoogan ay heleen ciidanka nabad sugidda iyadoona sidoo kale ciidankii militariga ahaa sidoo kale ay heleen gurmad kale oo ka yimid xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. inta la og yahay 5 ruux oo 2 ka mid ay yihiin dad shacab ah halka 3 kale ay yihiin dhinacyadii halka ku dagaalamay ayaa dhaawac uu ka soo gaaray iska horimaadkaasi xalay ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. marka dagaal culus oo adiga caadi ahna ka dhacay oo ku dhawaad 1 saac socday marka xaaladda xalay aad ay u cakirtay wadno dhaawac ayaa la sheegay dadka qaar inay dhaawacmeen wax dhimasho hadda aan arkay ma jirto laakiin xilli habeen ay ahayd laakiin dad dhaawacmay oo dadka deegaanka waa maqal. si kastaba inta badan degmooyinka Muqdisho waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhaxeeya ciidanka dawladda Soomaaliya iyadoo iska horimaadadaasi khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaro dadka shacabka ee ku dhaqan degmooyinka Muqdisho.